kulankan looga hadlayay ammaanka muqdisho oo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed xubno ka tirsan golihiisa wasiirada maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga ayaa waxa ujeedadiisu ahayd sidii wada shaqayn buuxda u yeelan lahaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda Soomaaliya waxaana maanta lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ee magaalada Muqdisho intii uu kulanku socday waxaa diiradda lagu saaray dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoona la isweydaarsaday aragtiyo ku aadan xaaladda amni ee dalka iyo sida lagu xoojin karo markuu soo ilaaday kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda faahfaahin ka siiyay waxyaalihii looga hadlay kulanka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre أهمية الشركة قلبتها وحوها لبا أرين تكوبات إن حكومة قلها وزيرة إيو مسؤولين تهير دقمي هير قبل كم بنادر يسكو برتان واجباتنا كلاقاتان لحرير أمني قصدي قلبات وحوها إن go'aan ka soo baxay golaha wasiirada xalay shir ay lahaayeen loo soo gudbiyo mas'uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee gobolka Banaadir qasdigu labadaas arrin oo ahaa hawshana weli way socotaa waxay isku yimaadeen mas'uuliyiinta heer degmo heer gobol iyo heer qaran in amniga xamar laga wada tashto wax qabad aad iskugu dhowna wax laga qabto cadowgu wuxuu nagu soo weeraray caasimadda xamar waxay isku dayeen inay weeraraan simbalkii astaantii qaranka ee ahayd halkii madaxtooyada dalka Soomaaliyeed laga maamulay Maxamed Bilageele Somsa TV Muqdisho